أسأسك حوالد سمي الله أكبر الله أكبر كم الله أكبر حويان ولا ليال ganacsigu sidii aan waayo badan sheegay waxa weeyaan waa wax baraka badan waa wax ummadda anfacaya wuxuu anfacaya ummadana waxa weeyaan waa dar weyn oo runaantii meel badan laga soo aroori karo marka in ganacsadaha aad ku faraxdo waa muhiim marka ganacsatada deegaankeena dhamaanteedba waxa loo baahan yahay inaan wada ducayno oo wada garab istaagno oo ganacsadaha yar gooshariga haysta ama kaaroonaha yar u hooseeya haysta iyo ka tunka ku wada waxyaalaha yar ee bagaashka ah iyo ka ugu weyn intaba inaan ducayno waayo ganacsigu waa shay irsaaqad badan ilaahay galiyay ummadana lagu anfici karo wax badanna magarasa lagu qaban karo mararka far badan ay deegaanka ama dalkeenu dhibaato ka dhacdo hantida ganacsatada haysto waxay ka cunayaan waa wax iska yar wax laga yaabaa haaf bariisa iyo haaf baasta inuu dhameysan baruux isagoona adduunka waxa ka cunina iskaga tago laakiin maalkan uu dhisameeyo maalkan uu wado dadka ayuu u yahay kayd waa hantida ummadda weeyaan haddaad adigu aad cun mid kale walaalka cunaya hadduu walaalka cun mid kale in adeerka cunaya hadduu in adeerka cun saydiga iyo xididkaaba cunaya waa dar waxa weeyaan lagu wada jiro ganacsigu marka inaynu u ducayno ruuxa ganacsadaha waa muhiim dal hormar ma jirto ilaa ganacsada hormaraysa dal meel gaadha ma jirto ilaa ganacsatada meel gaadhsiisa guryaha dhisan ee magaalooyinka qurxiya dadka dhisa waa ganacsatada weeyaan kaabaha dhaqaalaha waa weyn dadka meel gaadhsiiya dawladda ma aha waa ganacsiga ilaa dhaqaalaha weeyaan hadda Dubai waad ogtihiin waxay tahay runaantii maanta wasiilada caalamka shidaalka ay leeyihiin agtooda waxba kama aha shidaalkii waxa dhaafay ganacsiga ay abuureen iyo maskaxda ganacsiga ay abuureen ee shirkad kasto adduunka joogta ay uga dhigeen inay Dubai ka furato xafiis mooye inay waxba dhaqaajin kareen nidaamka nooca ay sameysteen ayay shidaalkoodina ku iloobeen hanti badan iyo dalkeena ku dhisteen taa waxaad ka garanaysaa shidaalka xitaa waxa ka qaalisan ganacsiga marka waxa weeyaan in ganacsatada la garab istaago wanaag fara badan bay leedahay marka walaalayaal anaga ka shirkad ahaan sidii maanta oo idin sheegay waxa weeyaan waxaan waayahan ku mashquulsanahay inaan buuxino boosaska ganacsatadu wadamada kala ku nool ay buuxiyaan sida ma garanaysaa bangiyada sida xawaaladaha iyo meel kasta oo isleenahay waad kari kartaan ama awood Ilaahay idin siiyay inaan buuxino waayo waxa weeyaan waad ogtihiin deegaamada kale ama Itoobiya kale bangiyadooda hadda intay marayaan inta ka furatay jijiga xafiisyo ama meel gaar ah oo faracya ka furatay tiradooda ma tirin karna maanta waaran dhamaantood waxa weey waa Itoobiya sare inagana Soomaali ahaan wax bangiga maanta mid bay leenahay makrafanaasiyada waxay leenahay saddex bay leenahay marka walaalayaal in lagu farxo oo in badino yaa muhiim inaan mid ku ururino muhiim ma ah ganacsiga waxa weeyaan Ilaahay baa bixiyo laba dukaan baa waxa laga yaabaa in dukaanna lagu bilaabo 5,000 riyaal dukaanna lagu bilaabo 500 dukaankii 500 lagu bilaabay wax laga yaabaa inuu baabao kii 5,000 waxa laga yaabaa in 1,000 dukaan laga sameeyo waayo Ilaahay baa saaqada bixiyo Ilaahay qofku doono waa siyaa qofku doono hoos buu dhigaa marka waxaan kula talin lahaa ganacsatada deegaanka iyaynan ku mashquulin inayna hal xawaale isku tagno ama aynu isku tagno hal bangi ama aynu isku tagno hal makrafanaasi waxa ka fiican inta awoodda leh inay isku tagaan kolba mid cusub ay sameeyaan inagoo ilaalinayna inaynu isfashilino ama ilaalinayna waxayna awoodeena meeshan isku geyn lahayn inayna awoodeena lumino inagoo ilaalinayna haddana markastoo awood loo helo in la sii badiyo waa nidaam fiican weeyaan ruuxantii oo dawlad suudi far badan la soo garab dhiganayo mid Ilaahay dhaamin isaga garanayo marka walaalayaal waxa weey hadda xawaaladii ka hawaad garanaysaan xawaalad deegaan ka soo jeedahay oo lagu tiirsanaa masaakiin fara badan iyo magac iyo karaam iyo sharaf ay noolahay meesha way ka baxday markay meesha ka baxdayna waa wax sunnaha Ilaahay inay ganacsigu hoosna u dhaco korna u kaco haddii xawaalad kala jir lahaayeen kuwaas baa magacii iyo magarasa iyo manfaci ay xawaaladu inoo lahayd meesha ka baxday inoo buuxin lahaa marka waxaan leeyahay imika waxa weeyaan sanadadii u dambeysay aad baan ugu soo badanaynaa haday bangi tahay haday tahay xawaalad iyo haday tahay makrafanaasiba hala sii wadaan leeyahay ganacsatada hadii ilaahay insha Allah ku xidhnow dana wadaaga asxaabtaada afaaladaadu waa muhiim Dagara Media waa saaxiibka dadweynaha